بسم الله الرحمن الرحيم مدحويني horta waa ku salaamantahay aad baan ku salaameynaa marka koowaad ujeedada maanta kulankeena aynu nimeeyno kulanno waxa uu weyn arintii maalmahan aynu khilaafkeenu ina soo kala dhaxgalay ee ahayd imaad xisbiyada furtid adiguna ku adkeysanaysay ima hadda xisbiyada in la furo aanu lahayn xisbiyada la furi maaye doorasho madaxweynaha la qabanaya halka ururada la saxo la furo wala waan ururada la furo wi bada misantaa adigu way soma jala madaxweynaha adigu waxa aaminsantahay in ururada la furo anana waa ka soo horjeednaa xilligeedii may dhamaan ee waxa weeyaan in madaxweynahu uu soo horeeyo doorashadoodu anaga taayadii wali 6 bilood ba ka hadhay waqti ayaanu haysanaa laakiin taadi hadda ay ku ekeyd doorka bilood ku ekeyd taa in la soo horeysiyo oo lagu tartamo hadhowna xisbiga la furo laakiin waxaan u maleynayaa taa xisbiyada u maleynaynaa ima aad u rabtid ima sii badsatid oo sanada aad ku sii darsatid taasna ma aqbalayno mana yeelino waxaan rabnaa markaa sababtaan kugu nimi waxa weeyaan arintaas iyadoo dhowdahay ima jaal madaxweyne xilka gaarno muuso maanta waaya horta ururada la furayo waa sharci ururada marka la furayo waxa weeye 6 bilood ka hor June bishan ku jirno ayaa 6 bilood idin bilaabantay wixii sharciga waa ina fahamtaan qarsijac iyo lama baahno erro iyo qaldadac lama baahna waxa loo baahan yahay wixii la fahmo ururadu furan yihiin waa in la tartamo waa in saddex xisbi ay soo baxaan kaayaga xisbiga kulmiye diyaar baan u nahay diinna la ka badiyo inaanu qaadano oo nidhaahno ururkeygii xisbigii kulmiye waa laga badiyay oo saddex xisbi oo kale ayaa soo baxay dalka ka daaya khalkhalka ka daaya in maartay xasilooni darro iyo nabadgelyo darro ku abuurtaan adigayna bahalkii ururadiina mucaaradku waxa weeyaan dalkii waxay moodaa in cadow uu idin soo adeegsanayo dalka xajaa naga haysa annaga u soo dagaalanay annaga meel kasta rasaas naga soo dhacday annaga dalkii talada gacanta ku hayna waa inaad namaqashaan oo talada aad qaadataan aan soo jeedin anu sidaas aan qaba fikirkay madaxweyne waad mahadsantahay laakiin waxbaan aqliga gali karayn muusow imaad maanta nagu qancisid adigoo 6 bilood ku harsan yahay anagana 6 bilood noo harsan yahay ka badan idinka doorashadeennii ayaa dhacayso waa kala diraya xisbiyadii anagu wax yar harsan tahayna waa gelaya taas kaama geyno wax aqli galana maaha sharciga wadankana in loo hanuunsanaa fiican adigu shalay ninkii mudaharaadayay baa tahay kulmiye waa kii shalay qaylinayay markuu joogay daayiriyaalay waa kii dhagaxa tuurayay waa kii ummadoo dhan isugu yeedho lahaa waxaan rabnaa doorasho anana tiibaan maanta ku taagana in aan maanta intaas soo anagu soo soconay markay doorashadii ay dhacday aad tiraahdid weydin kala diraya taa ka samcimayno kamana yeelino madaxweyne halkana waxaanu imi maaha hadda heshiis maxaad go'aansateen adiga ina bahalkii haddii hadda anagii waxaan go'aansan muusi dhigayso waxaan go'aansanay in doorasho madaxweyne ay dhacdo haddii ay dhici weydo waxaanu kaga jawaabaynaa mudaharaad baan kaga jawaabaynaa ummadayada iyo dadkana sugayana waa la wadaagaynaa waana u sheegaynaa waana dareensiinaynaa imaan muuse aanu rabin waxaba yaraatee dhasha uu rabo wadanka iyo dalka uu dib ku yahay rabana inuu burburiyo taasaa noo caddaatay horta markaan idinku eedayno muqdisho la idinka xukumaa iyo muqdisho u socotaan waxaa daliil u ah sidii reer muqdisho mar kasta waxaad warbaahinta marisaan hanjabaado waxbaanu dilaynaa waxbaanu samaynaa war waxa haysan soo daaya cirka iyo dhulka waxa haysan cirow faraha ka soo qaada wadanku madaxweyne ma xartay kalgaal galay danta wadanku waxay ku jirtaa nabadgelyo nabadgelyada wadankana anaga gacanta ku hayna
nabadgelyada waddanka wuxuu ku jirtaa ma kursiga si haysid tallaabo ma qaadi kartaan ama mucaarad noqda ama been isu sheega oo shalay markaad adigu saa sameynaysa markaa iska iloow shalay maanta la joogaa mid ku soo tashada xisbiyada mucaaradka aniga waxa iga go'an in ururada la furo maxaa tala idinka laba mid sameeya mid waad idinka yeeli karaa haddii aad leedihiin xeer hoosaad iyo xeer jajab danta ummadda inagoo eegayna aynu ku dhammayno oo muusow haddii ilaahay kuu run yahay mujaahid weyn baa tahay oo muddo usoo halgamaya dalka ee 2 sano oo kale ku darso anna markaa tanaasul waa samayn karaya waan odhan karayaa idinkuna xisbiyadiina ahaada oo ururadii aynu halkaa ku xidhno taasaaba jirta taasay noqonaysaa sababtay noqonaysa waxa weeye adigu 2 sano ku darso oo sii joog waay كل شيء صار ربطه ساس أنا فليا إما ذلك يدك وبربوري سيدي أنا وحسبيا إيمان ما أنت لفرين ويا هلك أي صحيح ما صحيح يا إنه أنت أقول هذا الله تسوق هذا الله وحنا نقول سوديا وحنا نجي هذا جاي هيد وحنا هدس لقى إن ما معه رغد يولس ودي يسيح ما يجي زي لو كويس ذلك هذا الدولة بلوية هاي شروع بلوية هاي قليل بلوية هاي دولة اللي سوق هنشبه عيدا كقرنك عيدا كقرن سوق مو حصوها اللي فيصل على ورا بصور لا هذا وشيك السلام عليكم فيصل وعليكم السلام ورحمة الله هريتي واكو سلام يا فيصل وكا قاضي أنا يا موسى واكو مغلى يا أنا واتشوغا محولي يعني كتورديهم نقرك شماها موسى هل كان وافق تاجية هل لما جانين لا هذا وحكولي هاي وحربا ورعير وحمقوشة ها ninkan waa laqdabo badan yahay gibigiisaba ka soo tagnay bas ka soo tagnayno shir baan qabsanaynaa go'aan baan gaaraynaa waxba abuleynaa haye way iskaga imanaya waxa laaliyo meel wada hadda wuxuu ku leeyahay warqad saxiix maxay warqad la saxiixaba qolooyin kale la shiray oo 2 sano rabaa inuu sharciyeeyo ha waa way sheegay baa way cadii gibigiisaba ka soo tagnay way madaxweyne arrintani waa arrin qaran waxa u baahan tahay xisbiyadayadu imaanu shir dib isugu noqono oo anaga Faysalaanu soo shirno oo aanu go'aan waxaanu qabanaynaa ummadaan u sheegaynaa waxyaalaha socda iyo waxyaalaha aad wadankan maada u tuurayn aanu sheegaynaa la wadaagay adiga ina bahalkii shir jira hada marka diga baxay shir jira waa qabanay ummadda u sheegay wixii hadda isla garanay dabxan isla garanay waxa isla garanay midha ka bedelnay waxa isla garanay sida alkaasina kala kaxay nabadgelyo caruurta ka talaal COVID-19 fasaxii iskuuladu waa bilowdeen talaal caruurta iyo qoyskaadaba caruurta 5 sano iyo ka weyn talaalkoodu waa muhiim ee caruurta ka talaal COVID-19 cudurka COVID-19 weli waa la kala qaadayaa waqtiga qaboobaha ahna si xoog leh buu u soo noqnoqonayaa talaalku waa kuwa muhiim ka hortag cudurka COVID-19 haddaba sideen uga hortagaa dhaq gacmaha mar walba meelaha ay dadku joogaan ay ku badan yihiinna afxirku qaado talaalka waa difaaca koowaad ee taxadar oo talaalku qaado taxadar oo caruurtaadu talaal